ku ahayd farxad inaad taariikh ka tagto taariikhdan aad ka tagaysay ee buugga qoraalka ah maxaad leedahay buuggaasi oo ugu culus ee fariinta ugu weyn ee uu xambaarsan yahay adiga oo adna ah oo warkaaga aad waxaan doonayaa dalkooda Somaliland iyo ummadooda Somaliland inay jeclaadaan oo ay madaxa ku qaadaan oo wixii wadankaasi uga baahan yahay haday aqoon tahay haday cilmi tahay haday gacan tahay haday wuxuu hiiliye tahay inaanay waxba kala bakhaylin kaftan baa jiro oo waxa leeyahay buuggan malaha aadna wuxuu soo gunaanada inay nasashadii galayso taayada ka war teedo labaysteen jir baa miyaanan istaahilina nasto laakiin dadka jecel inaad nasan ka waran hadana waa loogi inaad nasato ay tahay laakiin goormad nasan taa ilaahay baa xukuma taa ilaahay baa xukuma marka ilaahay ina fariiso waan fariisan aad biyad ma aad u qaaliya oo taariikh culus oo nolosheedii waayihii Somaliland buugani ma xambaarsan oo kaliya Adna Aadan Ismaaciil taariikhdeedii iyo nolosheedii iyo waayaheedii waa buug qaranka Somaliland laftiisa taariikhdiisa qayb ka ah waxa ku jira bogog badan oo taariikha sawirradii leh iyo dhacdooyin la xiriira arrimaha aynu maanta hadal hayno oo badan baa ka jira marka waxaan rajaynayaa koobiga aad nuqulkiina heshaan waa dalban kartaan buugta sida caalamka loo iibsado xataa Amazon baad ka eegi doontaan waxaad eegi doontaan buugan waa buug international oo meelaha caalamiga wuxuu leeyahay ISM numberkiisa buu leeyahay oo aad helaysaan magaca ayaad ku baadhisaan oo ah magaca halkaas idinka muuqda oo ah magaca la yiraahdo A Woman of Verses